اللهم على سيدنا نبينا محمد. لما نتشرف طبعا سكوتني أخو سلام الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدبنا بعد شعار كنتين كلمتكم ومن كير هذا الموضوع أي نوع حسونين صوصف دور شوين كان الدبول عيا مرة الدبول عيا محا أصلا محل مسكة قال كلام كسير كوابن بدل موضوع كوبي هاي أنا بقول هذا عرفتي كهرسين من كلمة كوابن قرنهان غير سومالي لأن هم نقض حسبيو هم نقض الدولة هم نقض أبويان وحسلي ما عيبة ينقطع هاي إن عن دور شوين وقت ودكوق بسومين وإنه قبل كروينه وإن أنت نفقعت لأن ما دور بيسويدينه نحن قبل كرويني وحيرتي عيب نقوى إن قلت شيء لا تصدق فردو وبرلمانكي وفرديو ودور شيء كنا يدبر عيان ولا تدبر عيان إما كنا ورور وشيلو ما كمان حلا هدي يعني قفكي لا دور تابا كرسي الله دورته وحوي ماشي لا دور تام institution كلا دور تابا وككي وايو بنين وايو وتبتلو يجرو ويكنتي وعبي وتهاي مكشان يلا تنسى نضود اللي يهدو بوها يعني ونقبل كروين اللي وحين نقول تايلين برلمان كذلك ما مدحونا أبو سالنو سوي ذلك ديار روان تبتلنا كوتشرين ديار رواينو وحوي بنيو وهوري كودواقي لكن سيدنا دور الشدي يعني لا هذا سسان كذي يسكت بدعي تقاله يسكت بالعسنين وح يدو كتير سنتي شفتو أنكو صورنا يا هون مركا وهذا الكوكور سيا دور الشوينك دي بدعوا ذا محينو محاسبة محينو سي كقبان كرا حسنا واحد صوابا دي بدعوا كسيد عاد الله قاعد وأن political interest بكوتشرة political interest أما وتشيدو سياسة بكوتشرة دي بدعة غالبا صوبنا وحاوة أو صوابا markay ama farsamo timaado ama ay timaado wax uun sababay oo sabab ku timaado in doorashada waqtigeedii iyo dhaqaalaheedii iyo qorshaheedii aanu diyaarsanayn waxa sahasha markaas sabab siyaasadeed mawjado siyaasadeed oo kororsiba dhalisa marka waxa la yiraahdaa waxa la isku qadaa laba shay haddii yani waqtigii dhamaado oo institutionki meeshii fadhiya baarlamaan ha noqdo ama madaxweynaha ha noqdo ama guurta ha noqdo institutionki meeshii fadhiyo oo waqtigii dhamaado waqtigaa dhamaaday iyo mas'uuliyadeeda iyo wixii loo baahnaa in la qabto in la isweydiiyo oo yaa mas'uuliyaddaani iyo shayga badanaa kaaba lama soo qaado waxa laga wada hadlaa هكاك عيو هذا اللي كوبين مايو ولا كوبينية هذه institution وقت كذا ما هو حسب معروفة إنه institution كي دريرين إنه هعدو إنني معقول نقول إنه فاكيو ممنه مكان إنه قلنا إني واحد يسكو يومي وحسب معروفة institution كي دولة فدي إن سكت درير ماشي قولين لكن سي أي مكروبة هنيت محا doorashada ayaa qaban waayay sababta maxaa sababay taayil isweydiyo runtii waxaan isleeyahay waxa sahlaya dib u dhaca doorashada waxa sahlaya waxa weeye sababta marka hore cid kasta ha keento ama farsamo ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto farsamadaas oo aan la isweydiinin laga wada hadlo always laga wada hadlo ha laga kacayo ha la baneeyo maxaa loo qaban marka waxaan isleeyahay waan ku soo ururinayaa hadalkayga waxaa muhiim ah inaynu number 1 ka dhigno doorashooyinka dib u dhacooda yani doorashooyinka qabatinkooda marka la qaban kari waayo inay farsamo ahaato aanay siyaasad soo wada gelin inaynu sharciyan wax ka bedelo oo iminka marka yani doorashadii la qaban kari waayo waxay ka baxdaa faraha ciddii shaqada lahayd oo ahayd komishinkii doorashada iyo ciddii stockholderska sugaysa ahayd xisbiyadii farahooda way ka baxdaa waxay gashaa faraha institution kale oo la yiraahdo guurti ee gacanta u gasho mandate iskale mandate-kaas wuxuu siiyay iyagu inay awoodooda access gareeyaan sida ay doonaan marka access gareeyaan haddii gacan siyaasadeed soo gashay inay soo gelin iyaguna sida doonaan access gareeyaan tan noocaas marka waxaan anigu runtii u arkaa talada sax ah inay tahay inaynu
كدغنو doorashooyin waa arrin farsamoodii oo ay noqoto marka hore ka talinteeda iyo diyaarinteeda iyo qorsheynteedu sida ay commission-ku leeyahay haddii sabab timaado tay doonto ha ahaatee hadday sabab timaado doorashadii waqtigeedii lagu qaban kari waayo in commission-ka loo daayo goorma qaban karaysa oo aynu sharciyeyno haddii iminka institution-ka xaq u leeyahay aynu u doodo isaga xaq u laho uu korinayo intaasoo jeer uu soo kobiyay laakiin waxa la qodobka oranaya hala qiyaaso yani ha qiyaasaan guurtu ha qiyaasaan waxa laga bedelo farsamaha lagu koobo ha lagu xadido oo xeer ha laga soo saaro sharci oo fasiraya qodobka fasiraya oo oranaya haddii doorashada la qaban kari waayo procedure-kaas loo maraya مثلا commission-ka soo astaynaya date-ka commission-ka asteeyo kaliya baana lagu qaban karaa period haddii yani ay wakiiladii saxiyaan sharci dejinta saxiyaan oo ama shirkan ka soo baxdo ama sideeda kale baa loo gudbiyay xeerka sharciyan loo gudbiyo ay sharci tahay in farsamo ay tahay aan siyaasad ahayn gacan kale soo gelinayso marka waxa la runtii sababta koobaad waa taas oo waxay u baahan tahay sharciyan ayay gacantii qofkii farsamada xaq u lahaa ku jirin cid ka wada tashanaysa ha noqoto stakeholderska cid judgment kale ee oranaysa xilligaas la qabanaya ha noqoto commission-kii doorashada ee gacanta ku hayay ee ahaa farsamahan maamuli haddii ay noqoto institution-ka waqtiga ka dhacay dabcan waqtigii farsamo uu sii joogay laakiin waxa meesha ka baxaysa wax uu keeno dabcan siyaasadeed iyo hunguri keeno oo waqtiga lagu dheereeyo meesha ka baxaya inta runtii waxaan kaga gudbiyay inta waxaan xasuusinaya runtii maadaama aynu doorashadii taagan tahay waxa yani laba shay oo culus bayna wada saaran oo doorashadii aynu u baahanahay inagu soo foole inaan waqtigeedii ku qabano ilaa haddana annagu xisbi ahaan waxaanu diyaarinahay in waqtigeedii baanu diyaarinahay inaan waqtigeedii diyaar garowno waxa sidoo kale runtii logic ah oo yani waxa weeye mas'uuliyadina faraysa abaaraha jira iyo duruufta jira in la sidii looga qayb qaadan lahaa si aan hadhowto iyaduna u noqonin duruuf la yiraahdo doorashada lagu kordhinaya war maanta inuu joognaayo weli doorashadii waqtiga inaga xigaya abaaraha sidii looga qayb qaadan lahayn ee u badbaadin lahayn dadkeena xoolaheena u badbaadin lahayn iyadoo inaan target ka dhiganaynin in doorashada wax lagu yeelo waxaan leeyahay doorashadu halkeeda haynoo wada cidii wadi laakiin si aanu gurmanayno isku duuban aanu hawlgalo aan dadka iyo xoolaha badbaadin waxaa kala hadlayay nin oday weyn oo qaateena runtii odayaasha waaweyn gabalay ka mid ah ii sheegay maalintii ilaa 300 oo gaari maalin kasta ilaa 300 oo gaari baa dad iyo xoolo keena area gabi ay waa dadkaysa runtii qaadka inta ay qaadayso 300 oo gaari every day inay wixii hargeysa galbeed ka xiga keenaan oo ay yani lagu badbaadayo waxa weeye geeda iyo biyo ay ka doonayaan oo isleeyihiin meel xoolo ku noolaan karaan dadku ku baxsan karo maalin walba 300 oo gaari baa yimaada arinta duufta noocaas inta la soo qaadi karayana waliba waa yarta duuf adag baa ka taagan waxaan adkaynayaa runtii waxaan leeyahay arinta abaartu waa arin taagan laakiin se uma jeedo abaartii baa timiya doorashada aynu ku duubno ana war doorashaduna waa doorasho waqtigeeda qabsan insha Allah ilaahay roob inoo keeni dadkana hortiyaan ka shaqeyno ka wada shaqeyno sidii loo badbaadin lahaa ee looga shaqeyn lahaa wixii duruuf keentana waynu sameeyman laakiin se aan yani iminka u adeegno sidii aynu dadkaana uga shaqeyn lahayn haddii doorashadii bari la qabanayna diyaar baanu berito haddii la qabanayo diyaar baanu laakiin se waxaanu leenahay war duruufta iyo jawiga yaalan ka jawaabno doorashadana diyaar garowno